السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال idin lahaantiinba kusoo dhawaada warkeena maalin laha waad kala socoteen Murti Media warkana waxa idin la socodsiinaysa aniga oo ah Nimcada iyo Maxamed waa maalin Khamiis ah 14 January 2021 qodobada ugu doorka roon warkeena maantana waxa kamid ah رئيس الوزراء dalka Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirada dalalka Qatar iyo Turkiga ciidamada militariga Ethiopia ayaa sheegay inay dileen qaar kamid ah saraakiil sarsare oo TPLF ah رئيس الوزراء ku xigeenka dalka Ethiopia oo kula la qaatay safiirka dalka Shiinaha imakay haatana ku soo dhawaada daawadayaal qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan tababarka barnaamijka shaqo abuurka iyo damaanad qaadka cuntada magaalooyinka oo lagu qabtay magaalada Jigjiga wareegga labaad ee tababarka barnaamijka shaqo abuurka iyo damaanad qaadka cuntada magaalooyinka oo muddo 3 maalmood ah ka socday gudaha magaalada Jigjiga ayaa la soo gabagabeeyay tababarkan ayaa loo qabtay xubno ka kala socday deegaanada Soomaalida Xiriirida Binshaangul iyo ismaamulka Diridhabe wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dawlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdifataax Sheekh Biixi oo soo xiray tababarkan ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay barnaamijkani sidoo kalena sheegay in la hirgelin doono wareegga labaad ee barnaamijka iyadoo gash laga dhiganayo galdaloolooyinkii laga helay muddadii uu sida tijaabada ah uga shaqaynayay 12 magaalo ee laga doortay magaalooyinka dalka kasoo qaybgalayaasha ayaa dhankooda soo gudbiyay aragtida ay ka heleen wajigii koobaad ee barnaamijka shaqo abuurka iyo damaanad qaadka cuntada danka kalena wasiir Biixi ayaa sheegay in ay barnaamijkan ka faa'iideysan doonaan dad badan oo danyar ah shirkadda Ethio Telecom oo sheegtay inay ballaarinayso dhismayaasha anteenooyinkeeda shirkadda Ethio Telecom oo ah shirkadda kaliya ah ee adeegga isgaarsiinta ee xilligan xaaliga ah ka hawlgasha dalka Ethiopia ayaa sheegtay inay diyaar u tahay ballaarinta dhismayaasha anteenooyinkeeda iyadoo raacaysa qorshihii dawladda ee ahaa in suuqa xor laga dhigo ganacsigana la furfuro shirkadda ayaa sheegtay inay ballaarinayso dhismaha anteenooyinkeeda sifa ay shirkado kale ula wadaagaan shirkadda ayaa sheegtay in anteenooyinkeedii 7300 iyo dheeraadka ah ee sii jiray ay diyaar u yihiin in lala isticmaalo shirkadda ayaa intaa ku dartay in meelo cusub ka dhisi doonto anteenooyinka shirkadda ayaa sheegtay inay 50% u bedeshay anteenooyinkeeda kuwa ku shaqeeya matooro iyo soolaro sidaa awgeed shirkadda ayaa ku casuumtay shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta ee caalamka ee daneynaya qaadashada qandaraaskan inay u soo tartami karaan shirkadda Ethio Telecom ayaa anteenooyinkeeda ka kirayn doonta labada shirkadood ee ka shaqeyn dalka Ethiopia kuna soo biiri doona suuqa isgaarsiinta ee dalka Ethiopia oo awal gooni u ahaa shirkadda dawladdu gacanta ku haysay Ethio Telecom رئيس الوزراء ku xigeenka dalka Ethiopia oo kulan la qaatay safiirka dalka Shiinaha رئيس الوزراء ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Damaqa Makonnen ayaa kulan la qaatay safiirka dalka Shiinaha u fadhiyay Ethiopia Shao Shiyu sida ay baahisay warbaahinta Fana رئيس الوزراء ku xigeenka ayaa sheegay in ay safiirka dalka Shiinaha ka wada hadleen arrimo badan oo midho ah oo ay kamid yihiin arrimaha xanuunka COVID-19 arrimaha biyo xidheenka Abay iyo arrimaha TPLF waxaa xusid mudan in ay Shiinuhu dalka Ethiopia ugu deeqeen dawooyin iyo agabka lagaga hortago xanuunka COVID-19 waxayna sidoo kale u soo direen dalka Ethiopia koox xirfadlayaal caafimaad ah xilliga uu ku cusbaa xanuunka dalka Ethiopia Shiinaha ayaa ku jira dadaal uu gacanta ugu dhigayo dhaqaalaha Afrika jaamacadda Bahardar ee deegaanka Axmaarada oo sheegtay inay furayso xarun lagu barto afka Soomaaliga heshiis ay kala saxiixdeen labada jaamacadood ee Jigjiga iyo Bahardar oo ay iskaga kaashanayaan waax badan madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi ayaa u diray jaamacadda Bahardar wafdi ballaaran oo ujeedadiisu ahayd inuu dardargeliyo heshiiska isfahan ee labada jaamacadood ay kala saxiixdeen wafdigii jaamacadda Jigjiga ayaa lagu wargeliyay inay jaamacadda Bahardar furayso 25 bisha Maaj 2021 xarun lagu barto af Soomaaliga wafdiga ayaa sheegay inuu ku wargeliyay madaxweynaha jaamacadda Bahardar Dr. Firow Tagagne in ay furayaan
furayaan xarunta barashada af Soomaaliga dhawaan ayay ahayd markii ay shaaciyeen qaar kamid ah iskuulada deegaanka Oromadu in ay bilaabeen barashada iyo dhigida af Soomaaliga arrintan ayaa loo aaneyn karaa deegaanka Soomaalida oo ah dhul laga sugayo in la manaafacadsado kheyraadkiisa diin ee shidaalka iyo wixii la mid ah ciidamada militariga Itoobiya ayaa sheegay inay dileen qaar kamid ah saraakiil sarsare oo TPLF ah Siumasfin Asmelash Waldisalaase iyo Abaya Sahay ayaa kamid ah saraakiisha la dilay sida ay warbaahinta Fana u sheegtay Birga General Tesfaye Yalow General Tesfaye ayaa sheegay inay ciidamada militariga iyo kuwa booliska federaalku howlgaladoodii sii wataan iyagoo guula gaadhaya sida ay sheegtay dawladda federaalka Itoobiya Siumasfin oo horay u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya la sheegay inuu ahaa siyaasi ka dambeeyay nidaamka Soomaaliya la haray ee ay dawladnimada ku qaybsato ee 4.5 ayaa kamid ahaa nimanka la dilay qodobka ugu dambeeya warkeena maanta daawadayaal waa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirada dalalka Qatar iyo Turkiga ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirada dalalka Qatar iyo Turki ra'iisul wasaaraha iyo safiirada ayaa ka wada hadlay arrimaha siyaanba qaadida dhismaha wadada isku xidha magaalada Muqdisho iyo Afgooye dhismaha wadadan oo ay maalgelinayso dawladda Qatar ayaa waxa fulinaysa shirkad laga leeyahay dalka Turki haddaba dhawaan ay argagixisada Al-Shabaab qarax xoog badan ka geysteen kaasoo galaaftay howlwadeenadii wadada ee Turkida ahaa iyo dad badan oo Soomaaliyeedba ra'iisul wasaare Rooble ayaa ka tacsiyeeyay gaaridii ku timid injineeradii ku mashquulsanaa dhismaha wadadan ee Turkida ahaa iyo dadkii Soomaaliyeed ee la shaqaynayayba ee iyaguna ku geeriyooday qaraxaas safiirada labada dal ee Qatar iyo Turki ayaa sheegay inay sii xoojinayaan xiriirka iskaashi ee ay Soomaaliya la leeyihiin warkeeni maantana daawadayaal waa naga inta marka xiga ku kulmi doona hawada waxaan idinkaga tagaynaa sida ayu amaana Allah